waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhawaada dhammaan khayrta waxaan channelkeena Kasba Option Somali. Insha Allah waxaan ka hadli doonaa website aan Windows soo geliyay oo la yiraahdo trx66.net. Website-kan sidaad ogtihiinba waa website investment ah oo maartay investment loogu talagalay. Insha Allah waxaan rajeynayaa maartay website-kan sidii anigu aan maartay idiin sheegayba. Website-kan waxa uu leeyahay qayb loo yaqaano training oo maartay anooyinka training-ka muddadii hadda aan ku jiray maartay waxaan ku jiray waxaan maraynayaa taqriiban waxaan soo dhigay maalin afraad baan soo dhigay Telegram-keena. Waxaa jirtay dhalinyaro badan oo maartay linkigii aan soo dhigay soo raacday oo haddii aan xagga aan ku dhuftay ay ku qoran tahay team. Waxaa jirta dhalinyaro badan maartay soo raacday ilaa 6 qof oo maartay soo raacay. waxaa jira dhalinyaro badan oo luuqa iga soo weydiinaya qaabka lacagta loo deposit gareeyo oo maartay horta application-ka deposit-kiisa waa kan markaad u baahantahay deposit waad soo dhufanaysaa. markaad soo dhufatay deposit waxaad maartay copy gareynaysaa address-kaagan. marka address-ka copy gareysid waxaad ku dhufanaysaa right click kadibna waxaad ku dhufanaysaa waxa loo yaqaano trust wallet. Trust wallet waxaa loo dhigaa lacagaha dhowr qaab. waxaana ugu fudud qaabka loo yaqaano perfect money oo maartay perfect money waa lacagta laga soo dhigaa trust wallet. lacagta aynu isticmaalnana waxaa loo yaqaanaa tron aynu isticmaalnaa lacagta loo yaqaano. markaad isticmaalaysid waxaad ku dhufanaysaa halka ay ku qoran tahay send oo maartay aad u diraysid. iminka waxaynu rabnaa inaynu gelino 2 TRX oo maartay raagiyana inoogu haraya. halkan waxaad gelinaysaa address-ka soo copy gareystay. halkan waxaad gelinaysaa waxa loo yaqaano amount-ga aad rabtid inaad gelisid. Okay, haddii dib ugu laabano halkan waxaa inoogu jirta waxa loo yaqaano lacagta loo yaqaan 2433.29 TRX baa inoogu jirta. haddii aynu dib ugu laabano aynu xagga nimaano trust wallet-keena waxaa inoogu jirtay 2 TRX. address-ka aynu soo copy gareysanay oo maartay address-ka waa kan. haddii aynu dib ugu laabano waxaan ku dhufanaa meesha ay ku qoran tahay deposit. markaan deposit ugu dhufano waxaynu oranaynaa copy address. markaan address-ka soo copy gareyno waa aragtaa okay already copy buu inayay address-ka waa copy gareysay. waxaan ku dhufanaa dhinaca waxaynu tagnaa trust wallet. waxaan copy gareynaa xaggaas ku paste gareynaynaa. xaggana waxaan gelinaa TRX amount-ga aan doonayno inaan isticmaalo. marka markaan copy gareeyno TRX amount-geena 2 TRX bayd waxaan oranaynaa continue. inta badan waxaa laga yaabaa in 2 TRX ay maartay adkaato inay baxdo laakiin okay already wuu inoo baxay oo 2 TRX oo 15 sentiya. okay waxaan oranaynaa continue. okay 2 TRX way inoo baxday oo already deposit-ka dhinacaashay kasoo eegaynaa markii halkan maartay lawaadhinku ay ka baxdo oo maartay already waan sii faarikeena iyo maartay 2 TRX naga baxday. okay qaabka marka waa deposit-ka aan idiin sheegayo aan hadda idiin sharxayo. insha Allah maartay qaabka withdrawal-ka lagu sameeyo inta jeer aan ka withdrawal gareeyay iyo waxyaalo badan baan rabaa inaan isla ogaano haddii lahayd. waxaa jirta maartay website badan oo maartay lacagta TRX ku shaqeeya laakiin way kala faa'iido badan yihiin wayna kala percentage waxan yihiin. adduunkana waxaa maartay la isku dhaafay dhanka withdrawal-ka oo maartay hadduu withdrawal-kaagu yahay reliable oo maartay waxan yahay maartay cid kasta jeclaysanaysa in maartay ay maartay application-kaaga ay isticmaasho lacagna ka shaqeysato. insha Allah halkan iminka waxaad arkaysaan in maartay 2 TRX ay transfer noqotay oo maartay 2 TRX ay naga baxday already. haddii aan ku dhufano dhinaca right click oo aynu tagno waxa loo yaqaano Chrome-ka ay ku noqono waxaa ku dhufanaysaa adoon dib uga laaban recharge complete. marka recharge complete saa ugu dhufatid halkaas wuxuu kuu saarayaa successful submitted. okay successful submitted markii inoo yimaado xaggan hadda kahor waxaynu deposit gareynay 30 TRX waa inay inoo noqotaa 32 TRX waa inay inoo noqotaa. okay refresh u dirnaa 32 TRX inoo soo galo. okay almost waxaad ogaanaysaa xaggan waxaan rabay waxaan idinka ilaaway
xaggan markaad depositka samaynaysid wuxuu kuu sheegaya in ay lacagtaas kugu soo gaari karto 5 minute ilaa 10 minute inta u dhaxayso. Mararka qaar waxay kugu soo gaari kartaa 1 minute, mararka qaar waxay kugu soo gaari kartaa 2 minute. marka mar labaad waxaa odhanaa recharge completed si maaragtay ii sheegay lacagteennii ay meesha inagu soo gasho haddii lahayd. marka insha allah lacagteenna iyada waan iska suginaa, laakiin waxaan ogaanaa in 2 TRX ay noo soo maqan yihiin oo deposit haddii lahayd. taa marka laga yimaado lacagaha sida loo shaqaysanaya, lacagaha waxaa laga shaqaysanaya meesha ay ku qoran tahay training. meesha ay ku qoran tahay training si maalinle ah waxaa lagugu soo gelin doonaa TRX free ah. markii aad doonayso inaad TRX free aad isticmaashid, xaggan waxay ku qoran tahay receive. anigu waxaan malaynayaa almost waxaan receive gareeyey 1 2 3 4 okay 4 jeer baan receive gareeyey oo maaragtay aan baktiyo nasiib laga soo dhigay ama lacag la soo dhigay aan ka aruursaday meesha. coinskan hadba waxay ku xiran yihiin maaragtay inta aad ku jirtay. anigu waxaan ku jiray 4 casho waxaan qaatay lacagahaas maaragtay TRX-ka freega oo meesha yaalay oo la isi siinayay. okay haddii ay withdrawal noqoto, markii aad withdrawal inta ku dhufatid, withdrawal limitka lagu ogol yahay inaad maalintii la baxdo waa 1.6 TRX. okay hadda withdrawal limitkeena waa 1.6 TRX laynoo ogol yahay. okay qaabka hadaba lacagta looga saarayo oo 1.6 TRX-ka uga saaran 1.65kaas waxaan imaanaa trust walletkeena. markaan trust walletkeena imaano almost hadda waxaa aragtaa trust walletkeena inuu maaragtay yahay TRX-keena inuu yahay eber lacagteena TRX-ka. okay waxaan ku dhufanaa meesha ay ku qoran tahay receive. markii ku dhufano meesha ay ku qoran tahay receive waxaan ku dhufanaynaa copy baan odhanaynaa. markii copy dano waxaan ku dhufanaynaa dhinaca, waxaan imaanaynaa Chrome-kan ku soo laabanaynaa, halkaas ayaan ku baas gareynaynaa linkigan. already hadda linkiga wuu nagu baas gareysan yahay, laakiin idinka idin kutusayaa waan iska saarayaa linkigan soo copy gareystay waan ku dhufsanayaa. okay lacagta liya ogol yahay waa midatan xaggan ku jirta. okay already aniga way diyaarsanay, laakiin idinka idin kutusayaa waxa weeye 1.65 markay u baahno waad gelinaysaa. okay already anigu markaa biinkii lacagta aan kula baxay waan gashtay, waa biinka aad kusoo samaysanaysid TRX-kaaga. kadib waxaad odhanaysaa confirm. kadib markaad confirm tirahdid wuu jari wareegaya. markuu yaro wareego already aniga waxaa lagu dhahay waa submitted, waa la submit gareeyey oo lacagtaas oo ii baxday. okay waxaan imaanayaa, waxaan ku dhufanay right click, waxaan kusoo laabanayaa trust walletkeyga. markaan trust walletkeyga dib ugu soo laabto waxaan dib ugu soo yarbaxayaa TRX-keyga. kadib waxaan doonayaa halkaas inay noo noqoto 1.7 TRX inay noo noqotaan doonaya. okay 1.7 TRX baan suginaa. lacagtaasi inoo soo maqan tahay oo halkaas waxaan doonaya inay 1 isu bedesho. falaadha kor jeedin waxaan doonaya inay ka sareyso falaadha hoos jeeda oo maaragtay in lacagiina soo gashay ay noqoto oo 1 TRX inayna soo gashay ay noqoto. sida taasoo kale sida tanoo kale waxaan doonaya inay noqoto 1 TRX inayna soo gashay oo falaadh hoos dhinacno kale u jeeda inay kor xaggan ka timaado ayaan doonaya haddii lahayd. okay waxaan sugnaaba in 1 TRX-keena ina soo galo haddii lahayd. okay already waxaa arkaysaa imika inay soo gashay 1 TRX 1.8 inay oo TRX inay nagu jirto markii horena ay eber TRX ahayd. waxaad kaloo arkaysaa in maaragtay lacagta inaka ina soo gashay ay tahay 14 senti halka ay markii hore ahayd hadda ay imika tahay 14 senti halka ay markii hore ahayd eber senti. insha allah waxaan rajeynaynaa muddo maaragtay isla fahanay qaabka lacagta loogu soo wadareynayo, qaabka loo deposit gareynayo. insha allah waxaan rajeynaynaa soo ogaatay isagana aad ku ceshan doonto. okay markii xagga dib ugu soo laabano waxaad ogaanaysaa in maaragtay ii sheegay lacagtii inaga go'day waad arkaysaa oo maaragtay inaga inoogu jirtay. okay waxaa kaloo xaggan ka ogaanaysaa markaa inaad maaragtay qeybta trainingka aad maaragtay ii sheegay kala socoto oo maaragtay oo ku receive gareyso oo maaragtay maalin kasta aad la socotid inaad si receive gareysid coinska lagu siinayo oo receive tiraahdo. waxaana waa levelo oo maaragtay levelis baa lagu gaaraya. insha allah maaragtay waxaa arkaysaa xagga hadda marka aynu tagno waxaad ogaanaysaa in maaragtay ay jiraan wax loo yaqaano levelis. waa kan level 1 oo VIP-gaaga, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6, level 7 ilaa maaragtay 7 level oo top ah inaad maaragtay heli doonto. insha allah waxaan rajeynayaa muddo isla fahanay. waxaan rajeynayaa maaragtay in wixii maaragtay su-aalaad qabtaan insha allah comment igu weydiin doontaan. fadlan haddaad channelkeena ku cusub tahay subscribe
like and share and comment. Insha Allah waxaan rajeynaya in maarata applicationada kalena ay la socodsiin doono. Waxaa jirtay update aan rabay inaan ka hadlo. Updatekaas oo ahaa in maaragtay hawshan TRX iyo Trust Wallet-ka qaabka lacagaha loo dhigo inaan isagana kasoo hadli doono insha Allah. Ayna jirto maaragtay shirkad nin dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo ganacsiga uu leeyahay oo loo yaqaano Somali Crypto Transfer in maaragtay uu isaguna hawsha nagala qayb qaadan karo, inoo fududeyn karo qaabka Trust Wallet-ka lacagta lagugu soo dhigi karo.